guddiga ra'iisul wasaaruhu u saaray baarista falkii afgambiga ahaa ee 27 Diseembar ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada ayaa dalbaday 5 sargaal oo baaritaan lagu sameeyo kaalintii ay ku lahaayeen afgambigaasi. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa qoraal u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka General Oduwa Yusuf Raage oo uu ka dalbaday in loo yeero 5 sargaal oo ka tirsan guutada 77 iyo ururka 6aad ee ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya oo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaanshiyahooda falkii dhacay 27 Diseembar. saraakiishan waxaa ka mid ah taliyaha guutada 77 iyo abaanduulaha guutada Koofiya Casta ee ilaaliya madaxtooyada waxaana ay magacyadoodu kala yihiin: 1 gaashaanla sare Xasan Aadan Dhicis taliyaha guutada 77 2 gaashaanle Shaafici Nuur Axmed abaanduulaha guutada 77 3 gaashaanla dhexe Cabdi Yaasiin Cali Kooshin taliyaha ururka 6aad ee guutada 77 4 gaashaanle Xasan Duwane Cumar abaanduulaha ururka 6aad 5 laba xidigle Muuse Maxamed Cabdu Shaarib taliyaha kooxda horinta gurmad ururka 6aad. taliyaha ciidamada xoogga dalka General Oduwa Yusuf Raage ayaa laga dalbaday inuu saraakiishan soo xaadiriyo maalinta Sabtida ah ee 8 Janaayo 2022 xafiiska wasiir dowlaha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. saraakiishan ku eedeysan kiiska afgambigii fashilmay ee dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay xafiiska Rooble ayaa qaarkood la sheegay in ka hor dhismaha guddigan wax laga weydiiyay kiiska, hase yeeshee Rooble iyo taliye Oduwa Yusuf ay u sheegeen inuu amarka bixiyay madaxweyne Farmaajo. arrintaas ayaa la sheegay inay keentay in la xiro qaar ka mid ah saraakiishan, taas oo lagu fasirtay in Villa Soomaaliya aanay marnaba diyaar u ahayn inay qaadato mas'uuliyadda wixii dhacay. guddiga uu dhisay Rooble ee baaritaanka ku howlan waxaa qorshe u ahaa in toddobaad gudihiis ay ku soo saaraan natiijada baaritaanka ay sameeyeen, balse warar aan helnay ayaa sheegaya in xogta ay soo helaan guddiga lala sugayo gabagabada shirka wada tashiga qaran oo la filayo in mas'uuliyadda amniga la go'aamiyo in Rooble lagala xisaabtamo. haddii arrintaas ay isku raacaan dhinacyadu waxay fursad weyn siinaysaa Rooble oo tallaabooyin ka qaadi kara cidda soo abaabusha afgambiga iyo koox waliba oo uu arko inay caqabad ku tahay amniga dalka gaar ahaan doorashooyinka.